komishanka xakamaynta AIDS-ka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Solnak xafiiskiisa gobolka Sool ayaa goobaha waxbarashada ka bilaabay wacyigelin la xidhiidha cudurka dilaaga ah ee HIV AIDS-ka. Goobaha ay wacyigelintan ka sameeyeen waxaa ka mid ah dugsiga Boordanka ee magaalada Laascaanood. Isuduwaha komishanka xakamaynta AIDS-ka ee gobolka Sool Zeynab Cabdiweli ayaa ka warbixisay wacyigelintan ay maanta bilaabeen. Maanta waxaan halkan ku nimid inaan sameeyno wacyigelintaas oo ku saabsan ay soo qabanqaabiyeen komishanka xakamaynta AIDS-ka waxaana weeye barnaamijka baraarug oo gobolada dhan ka wada socda maantana ininka nasiib u yeeshay in ku dahfuro dadkii ugu horeeyay loo qabta aad noqotaan komishanka xakamaynta AIDS-ku waxa weeye Solnak waa Somaliland National AIDS Commission waxyaabaha uu qabto ama waajibaadka asaasiga ah waxa kamid ah inuu dadka wacyigelinta iyo taakulaynta iyo daaweynta uu siiyo dadka xanuunsan iyo dadka kaleba taasoo ah ii sheeg waxa uu asaasan yahay ama waxyaalaha uu qabto ay kamid tahay gobolada oo dhan uu ka shaqeeyo gobolkeena hore uga jirin laakiin hadeerto ayuu ka jira oo kana shaqeeya wacyigelinta iyo baraarugta aan sameynana bulshooyinka kala duwan qaybaheeda kala duwan aan u sameynano ininkuna de waxaa tihiin dhalinyaradii maanta de gobolka ee waxbaratay de waxbarashadiina wada waxa la rabaa wacyigelinta inaad ka bilowdaan guryihiina ii sheeg dadka asxaabtiina de inuu de iskuulka ardayda de qof walba waajib bay ku tahay inuu de baraaruga ama wacyigelinta uu ka qayb sideeba looga hortagaya hadda waxaad uga hortagaysaa inaad horta ka dheeraato wax galmada xaaraanta waad ka dheeraanaysaa waxaa kaloo ka dheeraanaysaa irbadaha iyo sakiinta waxyaalaha dadka ugu badan ee ka qaada waxaa ka mid ah irbadaha la tuureen shakshaka sameyda arag ama isbitaalka ama qashinka soo wadooyinka ku tuur kuwaasoo kale waxyaalaha laga qaaday ka mid taha waxay kaloo la iska ilaalinayaa oo aad doonaysaa inaad qaadin hosbitaalada ama meelaha sameyda arag ilkaha laga xidhoo kale meelaha ugu badan ee gudbiyay ka mid tahay hadeer nambarada meelaha gudbiyay dadka ay ka soo raacday ka mid tahay because of sterilization-ka sida alaabta la iskaga nadiifiyo bay ku xidhantaa marka ma aha meel kasta in laga qaado. Dhankooda mas'uuliyiinta iyo macallimiinta dugsiga Boordanka ee Laascaanood ayaa komishanka xakamaynta HIV AIDS-ka wacyigelintan ay bilaabeen goobaha waxbarashada ee magaalada Laascaanood. maadaama ardada boardingkii waxyaabo ay sheergaraysa ayaa jirta xanuunkana si toos ah u fidiya maxaa ka mid ah makiinadaha aad isugu xirtaan intaad saaxiibka ugu xirto oo ay ka dhiijiso adna aad ku xirato toos baad u qaadaysaa haddii saaxiibka uu waday fayraska HIV AIDS. waxaa kaloo cidiya gurta baashan cidiya gurta haddii maxaan ku rahdaa dhiiggii ku booq cidiya gurtii adna aad la isticmaasho qofkii jirana waxay toos baad u qaadaysaa. waxaan idin kula talinayaa inagu muslim baynu nahay dhalinyaro baa tihiin wax walba waxa ugu jirtaan halis muslimkuna waxaa lagu dhiirigeliyaa xanuunkan markaa laga hortagayo waa in aad muxuu ahaa haddii aad doonaysid inaad muxuu ahaa galmo samaysid waa inaad galmo xalaala samaysaa oo xaaraanta ay iska ilaaliso sababtoo waxa weeye wax walba waa kaaga imaan karaan waxaa ka sii khatarsan xanuunka mararka qaar la sheega xanuunka loo yaqaan hepatitis oo isaguna beerka iyo intaasoo dhan digada ka dhigay marka intaasaad kula talin lahaa waxaa loo baahan yahay inaad wacyigashataan oo dad wacyigelinta qaataan noqotaan aydan noqon waayo waxbarashadii baad ku jirtaa. Dr. Cabdi Jaamac wararka Honkebel Laascaanood.